السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتنا عن جعلنا وإن سلامي مال ودو أدوك دعالي ساعة كجرتان كسر هذا برنامج كينا فاقدان عيارها وربنا عين فوهنا وحاكمنا kooxaha Manchester United iyo kooxda Chelsea ayaa kulan la wada sugayo bari waxay ku wada kulmi doonaan garoonka Old Trafford. Kooxda Manchester United ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Chelsea. Labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin afarta koox ee ku tartamayo kala sarreynta horyaalka Premier League. Kooxda Chelsea ayaa waxay ku jirtaa kaalinta 8aad ayadoo ka sarreyso kooxda Manchester United 2 dhibcood iyo 7 boos. Inkastoo kooxda Manchester United uu u harsan yahay kulan baaqi ah, haddana kooxda Chelsea ayaa badisay kulankii ugu dambeeyay oo ahaa koobka FA Cup ah ay wada kulmaan labada kooxood ee Manchester United iyo kooxda Chelsea. Inkastoo afartii kulan ee horyaalka Premier League oo ay kulmaan ay afartaba badisay kooxda Manchester United, afartaas kulan 3 kulan oo kamida waxa ay ku soo badisay kooxda Manchester United garoonka Stamford Bridge ay ku ciyaarto kooxda Chelsea. Kulankii ugu dambeeyay ee ka dhaca garoonka Old Trafford waxa 4-0 ku badisay kooxda Manchester United, ayadoo goolasha u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Antonio Martial, Jamie iyo 2 gool uu dhaliyay Marco Rashford. Kooxda Chelsea ayaa si fiican iskaga soo xoojisay suuqii kala iibsiga ee xagaagan, ayadoo la soo saxiixatay ciyaaryahano waaweyn oo magac leh sida Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell iyo goolhaye Mendy. Labadan kooxood tan iyo markii loo bixiyay horyaalka Premier League magaca Premier League waxa ay kulmeen 56 jeer. Waxaa gacanta sare iskale kooxda Chelsea oo badisay 18 ka mid ah 56daas kulan, halka ay badisay kooxda Manchester United 17 kulan oo kamid ah 21 kulanna waxay galeen barbaro. Si kastaba ha ahaato, saadaali kulanka adag ee bari yaa badin doono, ma Frank Lampard ayaa badin doono mase waxaa badin doono macalin Solskjaer. Kulankiisii ugu horeysay ayuu waxaa laga yaabaa inuu bari dheelo Cavani ma ku hogaamin doonaa Manchester United guusha ay raadinayso, mase Timo Werner oo kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka dhaliyay 2 gool 3 gool ay dhalisay kooxda Chelsea 2 kamida waxaa dhaliyay Timo Werner. Mar kale ma ku hogaamin doonaa kooxda Chelsea guusha ay raadinayso. Labadan kooxood haddaan jaleecno labadii kulan ee ugu dambeeyay ay soo dheeraan ayagoo u kala baxayo kooxo kale, wuxuu ahaa tartanka Champions League. Chelsea gurigeeda ayay waxay ku gashay barbaro gool la'aan ah, halka kooxda Manchester United Championka kulankii Talaadada ay u safartay wadanka Faransiiska ayadoo kula soo ciyaartay kooxda kaalinta 2aad ka gashay sanadkii la soo dhaafay Champions League ee Paris Saint-Germain. Kooxda Manchester United ayaa waxay 2-1 kaga soo badisay kooxda Paris Saint-Germain, ayadoo goolasha ay u kala dhaliyeen ciyaarta oo ku dhamaatay 2-1. Manchester goolasha waxaa u kala dhaliyay Bruno Fernandes oo goolka hore dhaliyay qaybta hore, iyo ciyaarto dhamaanayso gool uu dhaliyay Marco Rashford. Labadaas iyo halkaas 2 gool iyo 1 ay kooxda Manchester United ku soo raacday guusha. Haddaba saadaali kulanka bari ma waxaa badin doona Chelsea mase Manchester United? Wixii ra'yigaada ah commenti inoogu soo qor labada kooxood cidda badinayso. Intaan ku kulmayna barnaamijka xigo fi